Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa idin wada salaamay walaalaha ku xiran janalkeena Zack Multimedia. Maanta waxaan rabaa muuqaalkani kooban inaan idinkula wadaago animation. Wax walba oo ku saabsan animation inaan kaga hadalno ayaan doonaynaa muuqaalkani. Runtii waxyaabaha inta badan ee loo soo aado Adobe After Effects ayaa waxay tahay in waxaani lagu sameeyo dhaqdhaqaaq. Runtii dhaqdhaqaaq sidaan hore usoo sheegnay waxaa aad iyo aad ugu fiican Adobe After Effects. Sidoo kale waxaa muhiim ah inaad ogaato wax walba markii la dhaqdhaqaajinayo inay u baahan tahay keyframes. Marka maanta waxaan doonaynaa in waxyaabaha lagu sameeyo motionska inaan iskala fahmno. Marka waana cashirkii saddexaad ee aan ka sameynayo Adobe After Effects 2021. Marka kusoo dhawaada muuqaalka. Ugu horreyn marka waxaan soo furanaynaa Adobe After Effects ayaan soo furanaynaa. Mar alaala markaan soo furano ugu horreyn sida interface-kiisa hore ayuu noo yara keenayaa. Marka ugu horeysa waxaan sameysanaynaa composition si aan ugu shaqeyno Adobe After Effects. Haddii aadan daawanin cashirka compositionka sida loo sameysto iyo waxa ay tahay waxyaabahani dhan qaybtani kore ayuu kaaga soo bixi doonaa. Sidoo kale marka qaybtan name-ka waxaan u baxsanayaa animation. Waayo waxa aan sameynayo waa animation. Marka waa iska magac kaliya. Sidoo kale marka qaybtani haddii uu computerkaaga resolution-kaani haddii computerkaaga uu loo yahay waxaan kula talin lahaa inaad doorato quarter ama third-ga xitaa computerada 16 GB RAM-ka wataan inta badan waxay adeegsadaan 30 iyo half-kaasi. Sababta keenaysa ayaa waxay tahay barnaamijkan markaad playback-giisa aad wax markaad sameyso kadibna aad rabto inaad play aad dhahdo xoogaa yar go ama dheg badan ayaad ku arkaysaa oo programkii oo dhan in uu iskansalaab laga yarayaaba. Full-kani waa sida caadiga ah. Kan half-kan waxaa laga wadaa 1/2, kan waxaa laga wadaa third-gani 1/3, quarter-kan waa 1/4. Inta badan dadku waxay adeegsadaan third-ga iyo quarter-ka. Markaad adeegsanaysana sidoo kale waxaad ogaanaysaa xoogaa waxaad ka dareemaysaa shucaac inuu ku jiro muuqaalkaaga laakiin shucaac kuma jiro. Waa playback-ga ayaad daciif ka dhigtay. Haddaad si full aad u rabto kaliya waxaad dooranaysaa full-kaasi. Marka waxaa inta badan fiican quarter-kaasi iyo third-gaasi haddii computerka xoogaa performance-iisa uu wanaagsan yahay. Marka anaga hadda waxaan dooranaynaa quarter-ka. Marka duration-ka aan rabno waa 10 second. Kadib marka waxaan leenahay okay. Mar alaala markaan okay dhahno sida ujeedo black screen ayuu noo soo bandhigayaa. Marka ugu horeysa waxaan rabnaa inaan fahmno animation. Sidaan wada ognahay animation-ka meel ayuu ka bilaawdaa meel ayuu ku dhamaadaa. Tusaale ahaan haddii qaybtani properties layerska aan imaadno inta badan meeshan wax lagu tilmaamaa in ay tahay control sequence ama properties layerska meelaha ay soo galayaan waa lagu magacaabaa. Meeshan ayaa waxaan leenahay right click kadibna waxaan kasii dooranaynaa new kadibna solid color. Tusaale marka solid color-keena waxaan u rabnaa 400 pixel iyo 400 pixel. Kadib color-ka aad rabto meeshan ayaad ka dooranaysaa. Marka sida ujeedo hadda meeshan waxaa nagula sameeyay xoogaa kan aan iska xirno. Sida ujeedo meeshani box waxaa nagula sameeyay oo rectangle ah. Marka waxaan rabnaa inaan fahamka guud ee keyframe inaan ka fahmno. Tusaale ahaan sheegani hadda aan sameynay meeshan point A ayuu taagan yahay. Waxaan rabnaa inaan geeno point B. Marka si uu ku tago point B-gani waxaan u baahannahay inaan keyframe u isticmaalno. Xitaa waan sameyn karnaa haddii hadda aan soo jiidno oo inta aan keenno point B wuu tagay point A wuu ka soo dhaqaaqay laakiin wax motion ah ma ku jiro markaan fiirinayno oo timeline-ka aan play dhahno wax motion ah kuma jiro. Laakiin dhaqdhaqaaqa waxa sameynaa waxay tahay keyframeska. Marka si aad dhaqdhaqaaq aad ugu geliso marka ugu horeysa waxaad soo furanaysaa electasi kadibna waxaad kasii furanaysaa transform. Marka waa kana inta badan waxyaabaha laga sameeyo keyframeska waa intani. Anaga hadda marka waxaan rabnaa point inuu inta ka soo dhaqaaqo kadibna inta uu tago ayaan rabnaa. Marka waxaasi waxaa qaabilsan position. Marka sida ujeedo waxa inta badan loo isticmaalo horta position intaano dhan waa la wada adeegsadaa. Waxay qaban doonaan waan baran doonaa insha Allah. Marka hadda position-ka ayaan xoogaa yar rabnaa tusaale yar inaan ka bixino. Position-kani wuxuu wataa horta laba tiro ayuu wataa. Labadan tiro waxay u kala taagan tahay. Midna wuxuu ku geenayaa left iyo right. Marka dhankaasi midigta aan u jeedo wuxuu aadayaa wuxuu ka soo dhaqaaqayaa dhanka bidixda wuxuuna aadayaa dhanka midigta. Tiradan labadan waxay u taagan tahay in markii hoos aad u wado kor ay aadaysaa. Markaad tirada
kor u sii socotana waxaad aadaysaa qaybta hoose. Marka anaga hadda waxaan rabnaa in shaygan intuu ka soo dhaqaaqo kadibna inta uu tago. Kaliya waxaan daaranaynaa buttonkaasi keyframeska. Waayo waxa aan naga saacidaya inaan dhaqdhaqaaq sameyno waa keyframeska. Marka buttonkaasi ayaan ku dhufanaynaa. Marka xoogaa yar ayaan soo yara baxaynaa dhowr ilbiriqsi. Kadib waxaan soo aadaynaa dhanka iyo xitaa haddii kale haddii sidaan tiradan aad u soo wadi karin, kaliya waxaad dooranaysaa move toolkaasi shift ayaad la qabanaysaa. Markaad soo dhaqaajiso xoogaa yar shift ayaad qabanaysaa waad soo jiidaysaa. Kama straight line-ka kama bixina oo si toos ah ayuu kugu geenayaa meeshaasi. Waayo haddii aad tiradan soo wadi weyso waaye. Laakiin haddaad soo wadi karto dhinacan aad u soo jiidi karto waad adeegsan kartaa. Marka sidaa u jeedo shaygan wuxuu taagnaay bounty A wuxuuna imaanayaa bounty B. Marka sidaa u jeedo haddaan play aan dhahno sida u jeedo shaygani wuxuu ka soo dhaqaaqay bountigii marka ugu horeyso. Sida u jeedo meeshaan oo dhan waxaa ku jiro keyframes. Dhexdan intaan banaan waa meeshii dhaqdhaqaaqa uu ka sameyn lahaa. Positionka sidaasi ayaa loo adeegsadaa. Marka qaybteena kale ayaan gali doonaa. Marka kan aan iska soo delete gareyno. Hadda waxaan doonayaa inaan xoogaa sawir aan ku baraatikeeno oo iska marka ugu horeyso marka sawirkan waan soo jiidaya waxaan keenayaa qaybta iyo timeline-kan ama inta waan kusoo yarduldeyn karaa oo loo yaqaano properties layers ama waxaad keeni kartaa si fudud screen-ka aad ku shaqeynaysa ayaad kusoo yarduldeynaysaa si uu kugu keeno qaybtani. Marka labada option way ku banaan tahay. Anaga hadda si fudud marka waxaan kusoo yarduldeysanayna timeline-ka xoogaa yar inta noo ka yara keen. Marka sida u jeedo shaygii uu noo soo yargalay. Marka ugu horeyso marka waxaan rabnaa in aan background balaagani aan ka baxno aan aadno background kale inaan sameysano. Marka ugu horeyso waxaan leenahay right click kadibna waxaan kasii dooranaynaa new. Waa meesha aan right click siinayno waa meesha properties layer ama sequence control. Right click kadibna waxaad kasii dooranaysaa solid. Markaad solid color aad ka doorato sida u jeedo marka colorkani oo kale colorka waan bedelanaynaa. Colorkan oo kale ayaan sameysanaynaa. Marka sida u jeedo colorka nala sameyn doono waa color aad iyo aad u yar. Marka 400 kuma shaqeynin aniga waxaan ku shaqeynaa full HD 1920 ayaan ku shaqeynaa. Marka inaan ku qoro khasab baa maya. Kaliya waxaad sameynaysaa make composite ayaad kali ku siinaysaa si automatically ahaan asaga ayaa kuugu yara qaadaya. Kadib marka waxaan leenahay okay. Markaad sida u jeedo footballkii ama shaygii aan rabnay inaan ku baraatikeeno waa nagala qariyay. Waayo layerska siday u kala soo horeeyaan ayay u kala soo hormuuqanayaan. Midkaani waan qabanaya oo qaybta hoose ayaan yara keenaya. Marka si oo noogu soo yara muuqdo footballka. Marka midkaani ayaan furayaa ellipsis ayaan furayaa kadibna transform ayaan kasii furayaa. Markaan transform aan ku furno scale-ka midkaani positionka daa waan soo yara fahmnay. Anchor point-gana waan xoogaa waan guda gali doonaa laakiin midkaan ayaan cabirkiisa yareysan doonaa. Kaliya marka scale-kani wuxuu kuu qabanayaa in shaygii uu kuu weyneeyo ama uu kuu yareeyo. Hadda marka tusaale ahaan 100 waaye. Waxaan ka dhiganaynaa 80. Tusaale ahaan 80 aan kasii yareeno. Tusaale ahaan marka 30 aan ka yara dhigno. Marka 30kaani aan ku dhaafno. Sida u jeedo marka shaygii uu noo weynaay mar alaala markaan yareyno scale-ka wuu sii yaraaday. Scale-ka mar alaala markaad sii weyneysano shaygana wuu sii yara weynaanayaa. Marka ugu horeyso marka waxaan sameyn doonaa anchor point-kan muxuu yahay. Anchor point-kan wuxuu yahay calaamadani dhexda ku jirto ayaa waxaa lagu magacaabaa anchor point. Waayo haddii mar walba marka waxaa loogu talagalay anchor point-gani inuu yaalo qaybta centerka. Waayo haddii anchor point-gani aan asaga kaligiisa aan soo qaado asaga kaligiisa haddaan anchor point-gani aan soo qaado qaybtaasi toolska anchor point-ga meeshaasi aad ka yara tagi kartaa. Waa soo yoodaynaa qaybtan inta ayaan yara keenaynaa. Mar alla markaan rabno in aan shaygani rotation ama wax inaan gelino. Tusaale ahaan wax wareeg oo kale sidaas oo kale inaan u gelino. Sida u jeedo isla booskii uu taagnay rotation kama sameynayo. Isla booskii uu taagnay. Waxaa laga rabay in isla booskan uu taagnay inuu ku wareegsado. Marka si sidaas ay kugu noqoto waa inaad anchor point-ga aad qaybta centerka aad keentaa. Anchor point-ga fahamkiisa guud waa sidaasi. Waa calaamadani dhexda ku jirto ayaa waxaa lagu magacaabaa anchor point. Waxyaabo way jiraan oo anchor point-gooda qayb dhinacaas oo kale la geenayo ujeedo kalena laga rabo. Marka waxay ku xiran tahay hadba baahidaada. Sidoo kale marka hadda waxaan rabnaa position-kaasi inaan keyframeskiisa aan daarno. Position-ka sida hore u soo sheegnay wuxuu noo qaabilsan yahay in qayb sare iyo qayb hoose iyo qayb left bidig ama bidix inuu noo geeyo shaygani. Hadda keyframeska waan daaray oo click waan dhahay xoogaa yar ayaan kasoo yara baxaya. Markaan kasoo yara baxo qaybta hoose ayaan keenayaa. Marka qaybta hoose waxa ii qaabilsanaa qaybtan inta tiradan kale xoogaa yar qaybta hoose ayaan yara keenayaa. Qaybta hoose markaan sidaan u yara keeno
qaybta hoose sidaan u keeno marka ugu horeyso mara fiiri sidaan waa markiisa ugu horeyso haddaad rabto in uu inta sii aado kaliya xoogaa yar ayaad kasoo yara sekanaysaa keyframeska inta ayaad click ku siinaysaa add or remove marka click ayaan siinaynaa oo mid cusub ayaan rabnaa inaan ku darsano marka qaybtaani bidixda inuu sii aado ayaan rabnaa qaybta bidixda inuu sii yara aado marka inta uu sii aado marka ugu horeyso bal fiiri qaybta kale ayuu kasoo degayaa qaybtan ayuu aadayaa sida mar walba markaad baraatikeynayso practical badan aad ku samaynayso waad si yara fahmaysaa sidoo kale haddii aad rabto keyframe kale markaad rabto inaad kusoo darsato kaliya adigoo badhankaasi taabanin tirada aad rabto ama meesha aad rabto inaad u leexiso kaliya ayaad yara geynaysaa hadda qaybta midigta ayaan u rabaa sida ujeedo keyframeska inta ayuu kasoo baxayaa qaybta hoose ayuu imaanayaa inta ayuu sii aadayaa kadibna reflectionkiisa inta ayuu noqon doonaa markaad bal fiiri malag marka waxyaabahani markaad in badan aad ku baratikeyso oo keyframe fara badan aad samayso waad fahmi doontaa marka hadda waxaan rabnaa marka ujeedada aan usoo laabano positionka waan fahmnay scalekana sidoo kale asagana haddaan xoogaar keyframe yar aan ka sameyno waxay noqonaysaa tusaale ahaan sawirkani markiisa hore noo yargey marka positionka xoogaar waan soo yara fahmnay scaleka ayaan rabnaa inaan keyframekiisa aan wax un aan ka ogaano baranka keyframekiisa noo daar kadibna soddonkaas waxaad ka dhigaysaa 0 marka 0 aan ka dhigno sida ujeedo sheyga sidaas ayuu ugu baxayaa shay sidaas ugu baxaya ayaad samaysay laakiin bilcagsi ma samayn kartaayo oo markii sheygan wax soo baxayo kale inaad ka dhigto kaliya waxaad samaynaysaa keyframeskiisa hore sida ujeedo cabirkiisa waa 30 kan ayaa waxaad ka dhigaysaa ewer kan markaad ewer ka dhigto midkan labaad ayaad imaanaysaa waad ku yara dhufanaysaa kadibna waxaad ka yara dhiganaysaa 30ka marka bilcagsi waad samayn kartaa marka waa kana fiiri marka koowaad sidaan ayuu kusoo yargalayaa markuu sidaan kusoo yargalo waxaan rabnaa balonigan inuu qaybta hoose soo aado waxa noo qaabilsanaay waa positionka ayaan dooranaynaa xoogaar dhowr second ayaan usoo yara baxaynaa kadibna qaybta hoose ayaan usoo yara jeedaynaa marka qaybtaas hoose aan usoo yara jeedino marka sida ujeedo markiisa hore sidaan ayuu kusoo yargalayaa kadibna baloniga qaybta hoose ayuu markaasi aadayaa haddii aan rabno sida tennis oo kale inaan ka dhigno balonigan xoogaa yar u badboodo kaliya waxaad samaynaysaa positionka ayaad mar kor u qaadaysaa qaybta kore ayaad u qaadaysaa waa soo celinaysaa oo isku dhaweynaysaa haddana qaybta hoose ayaad yara keenaysaa marka sida ujeedo labadani keyframe xoogaa yar hadda sida ujeedo mar alla labada keyframe ay isku dhow yihiin waa mar allaale markay speedkooda uu badan yahay hadda labadan keyframe isku wada dhow yahay speedkoodana uu dhow yahay marka sida ujeedo fiiri isla asaga ayaan soo koobi garaysanaynaa asaga ayaan sidan koobi saaranayna waxaan leenahay control c xoogaa yar isla booskii uu taagnaa ayaan control v ku leenahay control v marka sidaan ayuu noqonayaa sidaas ayuu u badboodayaa marka kaliya waxaad samaynaysaa mar keyframeka ayaa wax yar kor keenaysaa haddana daqiiqad yar ayaad baxaysaa oo qaybta hoose ayaad yara keenaysaa sidoo kale rotationkan wuxuu kuu sameynayaa in sheyga isla booskii wareeg inuu sameeyo marka rotationkan wuxuu kuu sameynayaa in uu sheyga uu wareeg uu kuu geliyo tusaale ahaan marka rotationkani ayaan keyframekiisa yara daaraynaa xoogaa yar ayaan soo yara baxaynaa xoogaa yar baloniga meeshiis inuu ku wareegsado marka isla asagan waxaan sameynaynaa copy ayaa keyframeskiisa ka qaadaynaa oo select ayaan sidaas u saaraynaa control c control v marka sida ujeedo bal fiiri marka rotationka marka sidaan hore kuugu soo sheegay wuxuu kuu sameynayaa waxay tahay wareeg ayuu kuu sameynayaa sidoo kale kan opacitygan waxaa loogu yara talagalay marka opacitygan wuxuu qaabilsan yahay in shay iftiinkiisa la yara gaabiyo ama la yara dheereeyo tusaale ahaan hadda keyframeska oo waxaan daaraynaa opacity markaan daarno xoogaar sida ujeedo isla asagii layerkiisa ayuu inta noogu yara sameynaya oo keyframe ah xoogaar ayaan kasoo yara baxaynaa oo keyframeskan 100 waan ka yara dhimayna waxaan ka dhigaynaa tusaale ahaan conton okay ayaan leenahay marka fiir markuu inta joogo oo baloniga sidaas wareeg uu sameynayo wuxuu isla markiiba sameynayaa in uu iftiinka uu si yara gaabiyo marka keyframesyadani sidaasi ayaa loo adeegsadaa positionkan wuxuu ka caawin karaa in sheygani
kor ama hoos ama midig ama bidix. Transform keyframeska inta badan wax lagu sameeyo waxyaabaha dhaqdhaqaaqa waa intani. Kuwo kalena way jiraan oo effectyaal ah oo laakiin asal kama maqna intani. Marka asalkooda kama maqna intan ayaa u ah waxyaabaha inta badan la sameeyo oo keyframeska intan ayaa u asal u ah. Lagama waayo in keyframe walbo la sameynayo inuu position ka kooban yahay ama inuu scale ka kooban yahay. Sidoo kale waxaa muhiim ah inaan kugu daro intaan ka bixin muuqaalkani haddii scale-kani sheegani ficta ay kaaga qaadan tahay kuma sameynayo cabir isla eg ah. Sida u jeedo cabir isla eg ah oo square ah kuma sameynayo. Marka mar walba waxaad fiirisaa in scale-kani ee ficta meeshan kuu yara saaran tahay. Marka waxaan rajayn doonaa xoogaa inaad fahamteen waxyaabaha dhaqdhaqaaqa basicskooda inaad fahamteen. In badan markaad sameyso practical badan markaad sameyso aad iyo aad ayaad u fahmi doontaa. Marka waxaan rajayn doonaa inuu muuqaalkan dhammaantiin idin caawiyey. insha Allah muuqaalkani intaan ayaan kusoo gabagabeyn doonaa. Fadlan haddii aad channelkeena ku cusub tahay fadlan subscribe saar, fura calaamada gambaleelka si ay kuugu soo yara dhacaan muuqaal walba aan soo gelino, lana wadaagan asxaabtaada muuqaalkan si aygana ugu yara faa'iidaystaan. Haddaad videoga ka faa'iidayna like garee si YouTube-ka ee u sii faafiso una sii gaarsiiso walaalahay kale. Lana wadaagna asxaabtaada muuqaalkan si aygana ay ugu yara faa'iidaystaan. Inta badan channelkan waxaan uga hadlaa arrimaha multimedia iyo sidoo kale product review and dhammaantan aan qorsheenay inaan soo gudbiyo ayagana. Ugu dambeyntiin waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. waa inoo muuqaal kale.